أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين الله توفيق لنا وافجيه الله توفيق لنا وافجيه الله توفيق لنا وافجيه halkan waxaan kaga hadlaynaa galabta aqoon-yahanka Soomaaliyeed ma gutay waajibkii ka saaraa dadkiisa iyo dalkiisa si ay caqabadaha hor yaalla uga tallaabsadaan. Waa mowduuc aada u ballaaran oo aan waqti kooban lagu soo dhammayn karin, waayo mas'alado badan baa ku dhex jira oo u baahan in si dhaba laysula fahmo marka laga hadlayo aqoon-yahanku waajibkiisii ma gutay mushkiladaha ka jira dalka kaga aadana. kow horta aynu waajib isla afgaranno. waajib waxa weeye wax ku waajiba qofka naftiisa, waajib bay ka rabtaa, kaga baahan tahay qoyskiisa, waajib baa ka saaran. waajibku saasuu u weynaanaya, u koraya, naftay ka bilaabanaysa, waxay gaarsiisan tahay heer aadaminimo, basharka dunida kugula nool oo dhan waajib baa kaa saaran, sida iyaguna waajib uga saaran yahay inay xuquuqda aada leedahay u ilaaliyaan. tan aanu ka hadlayno waa tan ku eg levelka dalka iyo qowmiyadda aan ka dhalanay ee Soomaalida ah ee maanta ku dhiban nolosha. waajibku waxaa weeye sida rasuulkeenu uu yidhi calayhi salaatu wassalaam, suubanihii maxamed ahaa, dhammaantiin waxaad tihiin raciyad, dhammaantiinna waxaa idin saaran xil, oo wuxuu idinka saaran yahay wax kasta. qof kasta xil baa saaran, wuxuuna ka saaran yahay wax kasta. waddada markaa maraysa xil baa ku saaran, guriga markaa joogta xil baa ku saaran, waxbarasho haddaa ku jirta xil baa ku saaran, haddaad shaqaale tahay xil baa ku saaran, haddaad waalid oo carruur korsanaysa xil baa ku saaran. hadba xilalkaas sida qofka u guto uu uga soo baxo weeye waxa ummadaha kala hormariya. ummad waxaad arkaysaa ay ku badan tahay dad aan dan ka lahayn dalkii iyo dadkii iyo wixii meesha yiila, bal dugaagka ruwaa cunaya bahala markuu waaga baryo ilaa gobolka uu ka dhaco, ku fekeraya maxaad kharribtaa, maxaad boobtaa, maxaa adiga ku soo gala, maxaa ummadda noocaas uu ku bato. haddee waa sidaa maanta aan nahay iyo ummadaha nala midka ah, wax wujuuda aan ku lahayn nolosha iyo xushmad. waayo bani aadamku bani aadam buu xushmayaa, dugaag lama xushmayo. waxna waa la qashaa, waxna waa laga danaystaa, waxna waa loo daawasho tagaa. noocaasay noqonayaan dadku markii ay bahaloobaan oo waajibka aadanimo oo saaran ay ka tagaan. waajibkii marka haddaanu si guud waa wax la fahmi karo, qof kastana inta uu fahmi karo oo wanaagga baa waajib ku ah. wuxuusan fahmi karin cid ka rabtaa ma jirto. hadda masala inaad qof dishid kow ka siistay aan waxba kuu dhimin, ninka aqoon uma baahna inay dembi tahay. qof kasta waa garanaya, waa fidrada ku abuuran bani aadamka. ninka Kongo baadiyaheeda ku nool oo qaawan oo wax hadaarada ayan weli gaarin, dad saasaa jira oo weli ku nool noloshii u horreysa ugaarsiga ahaa. ninbaa waxaa u tegeen qolooyin wariyaala, waa dadka iska qaqaawan. waxaa la yidhi imisaad jirtaa? ninbaa u turjumayay ka mid aha iyagoo ilbaxay xoogaa. wuxuu yidhi imisaad jirtaa macnahayd maba garanayaba. wax da' la dhaho la tirsado sanad iyo bil iyo ayaamo iyo saacado iyo ma garanayo. qarniga 11aad buuna nool yahay qofkaas. wuxuu yidhi macnaheed imisaad jirtaa? waa loo sharxay. marka waxaa la yidhi qoraxda markay soo baxdo dhacdo waa maalin, maalmihii 30 waxaa weeye bil, intaasoo bilood 12 bil waa sanad. qofku markuu intuu sanadkaasaa wuxuu yahay guntan laga tirsado qofku intuu nolosha noolaa. wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa
6 sano inaan noolaa. waa 60 jir, nin odayo 60 jira buu ahaa. qofka noocaasa xataa in qof la dilo wuxuu fahmayaa qof aan waxba kuu dhimin dil inay khalad tahay. sidaa darteed diin kastoo aanan gaarin waa lagula xisaabtamayaa waxa yarkaa uu garanayo ama ku cadaab mudan ama maaragtay lagu dembi dhaafaya. noloshana waxay ku hagaagaysaa intaa yarta oo qofku garanayo oo khaladkaana inuu ka fogaado, inta yar oo wanaagaana uu ku dhaqmo. waajibku marka sidaasuu isu tarayaa. haddaan intaa kaga gudubno, waajibka saaran marka qofka aqoon-yahanka waa ka duwan yahay waajibka saaran odagaa 60 jirka oo 6 jirka isu mooday. waa ka duwan yahay, waayo aqoon buu sheegtay. wuxuu sheegtay nin wax garanaya, qof wax garanaya, wax badan og, waayo araga, khalad ka weyn khaladka uu ninkaa fahmaya, wanaag ka weyn wanaagga ninkaa u muuqdo. sidaa darteed baa aqoon-yahanku waajibka saaran waajibka ugu weyn oo bulsho dadkeeda ama xubnaheeda uu isku saaran yahay. waajibka ugu weyn wuxuu fuulaya qofka aqoon-yahanka. marka in la isweydiiyo aqoon-yahanka waajibkiisii ma ka soo baxay waa su-aal meesha ku jidha in wax badan la iska weydiiyo, wax badanna laga hadlo. okay, aan u imaano marka yaa aqoon-yahana. ilen title wey, aqoontu title la sheegto wey. meelaha aanu aadka ugu khaldannahay waxaa ka mid ah haddaan Soomaali nahay. aqoon-yahankii waxaanu u qaadanay qof jaamacad ka soo baxay. jaamacadda waxaa laga bartaa inteeda badan waxaa laga bartaa professional shaqo, farsamaa laga bartaa. hadda injineerka guryu dhisaa, injineerka baabuurta baabuur buu dhisaa, geologiga dhulkuu yaqaanaa, shidaalkii iyo macdantii iyo beerihii iyo si dhulka loo adeegsan lahaa buu bartaa, ku shaqeeyaa. takhtarka jirka bani aadamku bartaa, lafihiisii iyo xubnihiisii iyo dhiiggiisii. xanaanada xoolaha veterinariga wuxuu bartaa iisheeg xoolaha. caynkaas weeye shaqada farsamo yaqaanka. waana wax qof kasta u furan. tuugii iyo khaa-inkii iyo kii fiicnaa iyo kii anshaxa lahaa iyo kii kulli jaamacadda waa u furan tahay. waa wada gelayaan, professional bay noqonayaan. laakiin tuugii hadduu takhtar noqdo, takhtar tuuguu noqonaya. profession unbaa usoo kordhaya, aqoon uma kordhin. injineerkii hadduu nin tuuga jaamacadda injineeriya ka soo baxo, injineer tuuguu noqonaya, aqoon uma kordhin. farsamadii uu wax ku hadi lahaa unbaa usii kordhay. markaa gurigii dhahdid wuu ku khiyaanaya. aqoontii uu kugu dhaamay buu kaaga faa'iidaysanaya. aqoon-yahan marka lama dhaho waxa farqi baa u dhexeeya professionalist iyo intellectual. aqoon-yahan qof jaamacad ka soo baxay maaha. waa dhici kartaa qof aqoon-yahana inuu jaamacad ka soo baxay. aqoonta rasmiga waxa weeye dadka barta, bulshada barta. social study hadda qofka bulshada barta, aqoonta bulshada. yes, qofkaasaa aqoon-yahan la dhahaa. waayo kow wuxuu bartay waa noloshii dadka. dadkuna wax ilaahay uumay wixii u qiimi badnaa weeye. noloshii dadku bartay, socodkoodii, taariikhyahanka sidoo kale. dadkuuna ka shaqaynaya oo noloshoodii wax ka hagaajinaya. qofka taariikhda yaqaan maalan markuu siyaasi noqdo iyo qofka injineerka markuu siyaasi noqdo isku meel wax ma dhigayaan. waayo ninka injineerka lama socdo geedi socodkii bulshadan ay soo hayaantay, wixii qalad ka dhacay, wixii sax ka dhacay, ummadihii ay iskaashadeen, ficiladii wanaagsanaaye ay ka tageen oo u baahan in la ururiyo lagaga faa'iidaysto, meelahay isku khilaafeen oo ku jabeen, meelahay ku xoogganaayeen oo israaceen. waxaasoo dhan oo bulshada khusaysa buu ninkan xambaarsan yahay.
laakiin injineer soo bartay dhagax saar, shamiinto geli, cabir, qolka intaa gaarsii, dherarkiisa, balliciisa, waxa weeye culum qallalan buu wataa. waxaa sidaasoo kale ka mida wadaadada. mujtamac burburay oo ayan wadaado u kicin oo badbaadin ma jiro. mujtamacaadku markay burburaan, waayo wadaadku wuxuu aaminsan yahay caqiida. wadaad tuugaani ka hadli maayo. wadaadka xalaasha ah oo ilaah ka baqaya wuxuu aaminsan yahay caqiido, wuxuu aaminsan yahay waxa kan waajib diiniya oo saaran inay tahay, ilaahna uu kula xisaabtamayo. sidaa darteed mujtamaca hagaajinteedana wuuba u taagnaa, maaha injineer dhagax ururinaya. aqoon-yahan waxaa kaloo abwaanada ka hadlaya mujtamaca intay eegaan khaladaadkooda bannaanka soo dhigaya, wanaagoodana bannaanka soo dhigaya, oo intaa waaninaya oo waddada ku hagaya, waa aqoon-yahan. waxaa kaloo aqoon-yahanna macallinka soo saaraya jiil tarbiyeynaya caruurta, hadduusan tuugahayn isaguna sidoo kaleeto. marka aqoon-yahan waa professionaalada, waa ay sheegeen culumtaas ku wajahan ama aragtidaas falsafadeed ee ku wajahan dadka bulshada xubnaha xambaarsan baa la dhihi karaa aqoon-yahan. maahan jaamicadahan aanu furanay oo aanu u naqaano aqoon. aqoon-yahanku marka waajibka saaran muxuu yahay? intaynaan ma ka soo baxay u gudagelin, waajibka saaran 3 weeye. midu waxa weeye mushkiladda horta inuu diraaseeyo mushkiladda jidha oo bulshadu ay la socon laadahay, inuu diraaseeyo ABC ilaa Z, A to Z, inuu mushkiladiis hordhigo oo diraaseeyo, oo halkaas uu ka soo saaro nabarkii iyo ciladii jidhay. markuu diraaseeyo kadib sidee looga bixi karaa misana inuu diraaseeyo. waddadii markuu helo, waddadaasoo dee ku salaysan dhaqankiisii iyo taariikhdiisii iyo afkiisii, iyo mushkilad loogama baxo dad kaleo kuu yimid oo ku dhaha mushkiladii baan kula xelinayna. loogama baxo mushkilad dadka iyaga xalista according to their traditional dhaqankoodii, sugaantoodii, diintoodii, awoyaashood waxay uga tageen, oo asidka rasmiga ah halkaas yaa marjic u noqon kara. maraajic uma noqon karaan dadaan la dhaqan ahayn, la diin ahayn, la af ahayn, la daraynhayn. xataa mushkiladda dhadhanka ay ku leedahay uma laha dadkaa kale. kow, waxaa marka jira markii waddada u caddaato looga bixi karo iyo hubkii loo qaadan lahaa, sahaydii waddadaas lagu mari lahaa, waxa weeye inuu raadiyo marka ciddii hoggaanka noqon lahayd oo awrta lagu daba taxi lahaa. taa iyadaana waxaa ka dhalanaya in bulshadii la abaabulo. bulsho aan abaabulayn sida aan maanta naho kale weeye. jirka bani aadanka markuu cudurka kansarka oo ku dhaco, waa cudurrada ugu xun oo qarnigii tegay bani aadanku bartay. unug bani aadanku wuxuu ka kooban yahay tiro 110 trilyan oo unug buu ka kooban yahay bani aadanka jirkiisa. unug kasta inta kale oo unuga xiriir buu leeyahay. unug kasta waa dowlad iskeed u madax bannaan. haddee dowlad weliba high technology ku shaqaysa weeye unugii. unugaa yarka ayan isha qaban karin 1 milyan oo albaab buu ku leeyahay dusha. 1 milyan oo irdaha waa wada furmayaa. mid kasta wuxuu u furmayaa agab gaara oo gudaha looga baahan yahay. sidoo kaleeto signaal gaara wuu soo diraya. waxaa laga yaabaa unug ciribtaada yaal inuu maskaxda signaal u soo diro. markaasay maskaxdii kelida u diraysaa signaal. kelidiibaa waxay samaynaysaa qalabkii halkaa looga baahnaa, ciribtay u diraysaa. 1 milyan oo albaab, hal albaab keliya u furmaya. albaab kasta aadi maaya qalabka.
albaabkii u furmayuu gelaya aadaya markuu waraysto hor istaago waa u furmaya wuu gelayaa albaab kalaa jira labada albaab dhexdooda lagu celinayaa si loo hubsado garantii ma yahay waxaan socda wixii loo baahnaa inuu yahay unugyada sidaa u wada shaqeeyo high teg ah cudurka kansarka wuxuu ka bilaabanayaa hal unug oo isxiraya wuxuu diidayaa inuu dibaddii la shaqeeyo bulshadii unugyada ahaa buu ka xiranayaa irdaha inuu wax qaatana ma oggolaanayo inuu wax soo daayana ma oggolaanayo unugaa jiran baa tarmaya marka cell division baa ku dhacaya biologiga waa kusoo wada barateen wuu tarmayaa unugii laba noqon jiran labadii unug 4 bay noqonayaan jiran 4tii baa laba jibaarmaya 8 baa laba jibaarmaya 16 baa laba jibaarmaya 32 64 wahakada caynkaasay ku soconayaan mujtamaca xanuunsan marka waa noocaas oo kale koox dadkii ka mida isxiraya waxay iska xirayaan masaalixdii dadka wanaaggii dadka wixii awowayaal laga dhaxlay ee wanaagsanaa ee dhaqan ahaa mujtamacaas sidaas cudurkaasaa faafaya marka koox kale ku daaranayaan koox kale ku daaranayaan koox kale ku daran ilaa cudurkii oo mujtamacii wada gaaro kansarku markuu jirku ku wada faafo waa uu dhintaa qofku mujtamaca caynkaas oo kale noqdaana oo iswada xira wuu ka baxaa saaxada dadkan waabay jireen bay noqonayaan sidii caad iyo tamuud laga sheekeeyo o kale sidaa darteed in dadka la abaabulo oo laga hortago waxaa khariban oo inta la geliyey lagu qafilay at least maaragtay kooxo nadiifa la raadiyo aqoon-yahanku isurursadaan bulshadii ka dhexushaan bulshadoo dhan ma wada aha waxaa la dhahaa 100kii qof 5 qof baa leadership character leh 95 kale waxay diyaar u yihiin in la hogaamiyo marka dadka eliidka in ay raadiyaan abwaanadu diraasadii markay mushkiladii diraasa ku sameeyeen waddadiina u caddaatay in markaa abaabulkii ay galaan haddaan marka jawaabtii rasmigeed u imaanaynaa aqoon-yahanku ma qaateen waajibkii saaraa haa jawaabtii oo kooban waxaan leeyahay haa waa ay qaateen aqoon-yahanka haddaan soomaaliyeed haddaan dib ugu laabanno culimmada diinta haddaad fiirisid wax badan bay u qabteen dadkan muddadii burburka uu jiray haddaad fiirisid abwaanada sidoo kaleento haddaad fiirisid macallimiinta sidoo kaleento 3 group oo ah ii sheegay lagu tilmaamo aqoon-yahan xataa jiilal cusub oo waxaad arkaysaa kacay oo ama culimo ah ama abwaano ah ama macallimiin ah oo jiilkii ka horreeyey waddadii ay mareen ku socda dadka intaa baraarujinaya waxbaraya la hadlaya waris hagaajiya dhahaya niyad ay ka tahay wiilasha yararkii abwaanada ee soo baxay markaad aragtid iyagoo 30 aanan gaarin ama 35 aanan gaarin yacni waad ku raaxaysanaysaa waxaa kasoo butaacaya waxaad u jeedaa inay niyad ka tahay niyad inay ka tahay sidoo kaleento dhalinyarada yaryar ee diinta bartay culimada ah iyaguna saas oo kale dadkooda aada u waaniya maxaa haddaba loo guulaysan laayahay guusha horta si haddaanu islaam nahay waxaanu ogsoonahay guushu ilaah bay ku xiranta ama nasrullah min cindi illah goorta ummaddan ay ka baxayso shiddada imtixaanka lagu hayo saa garanaya laakiin dadka waajib ka saaran wuxuu yahay in la dadaalo wasiiladaas baa ilaah nagu addoonsaday in la maro in wanaagga lagu dadaalo wixii wanaagsanna la ysfaro wixii xunna laysu tilmaamo
sababta marka loo guulaysan layahay waxa weeye mujtamaceenni baa wuxuu yahay mujtamac xanuunsan. sida qofku u jirado hadda examblekii kansarka aan bixinayo kale, sida qofku u jirado yay bulshaduna u xanuunsataa. bulsho xanuunsan marka wakti bay qaadanaysaa. xanuunka waxaa la dhahaa degdeg buu ku yimaadaa. qofkii isagoo caafimaad qabo ordayuu soo dhacaa hal mar, laakiin caafimaadku degdeg kuma yimaado, process buu qaataa. sidaas si lamida ayaa bulshaduna say u wanaagsan tahay markay jirato hal mar bay isku dhex yaacdaa adduunta. say usoo kabato wakti buu qaadanaya. bulshadeennii oo xanuunsan baa waxay sababaysaa waxaa hadal wanaagsan ama xigmada ama diina ama dhaqana ama sheekooyin taariikh fiican oo awowayaashaya ay lahaayeena si kastoo loogu sheego, maadaama bulshadii xanuunsan tahay dawadii hal mar jir ka qaadan maayo. brocesskii caafimaadka waa inay martaa, waana sunno ilaahay oo qaab ilaahay nolosha ugu talagalay wey. bulsho xanuunsan marka laguma eedayn karo aqoon-yahankeedii dowr ma qaatay. aqoon-yahanku dowrkiisii waa wada. waa qof isbitaal jiifo aa tiri takhtarkii dowr ma qaatay. takhtarkii brocesskiisii waa wadaa, laakiin jirkii baa laga rabaa inuu dib u soo kabto. taasina process bay u baahan tahay iyo waqti hadba cudurka ku haya intuu gaarsiisan yahay xooggiisa. marka mujtamaca xanuunsan wuxuu u baahan yahay diraaso xoog leh. wuxuu u baahan yahay in la fahmo xanuunka nahaya. wuxuu u baahan yahay in la fahmo aayaddii ilaahay uu ku yiri qoom xaaladda uu ku sugan yahay ma bedelo eebe ilaa ay iyagu niyaddooda gudaha ah beddelaan. niyaddii hadday bugto oo khariban tahay oo aan lays ogeyn in la khariban yahay, hadda waa kansarkiiyo kugu sii faafaya wey. shirarkii hadda laynoo qabanayay sagaashanaadkii iyo wixii ka dambeeyey, shirarkaas waxyaabaha yaab kalaa waxaa ka mid ah dowlad baa la dhisayaa baa leeyahay. jabuuta la isugu tegay, etoobiya la isugu tegay, kenya, seychelles, yemen, uganda, ilaa new york xataa waa la tegay. new york yaa la tegay headquarterka un-ta, iyadoo la heshiisiinayo laba reer. waxyaabaha yaab kale. okay, haba la heshiisiiyo ma xuma, laakiin markaa la heshiisiinayo dowlad baa la dhisayaa baa la leeyahay, waana la islaynaya. dagaalkii baa socda, xabadii baa socota. dad diriraya markaad tiraahdi dowlad baan u dhisayaa, macnaheedu waxa weeye isa sii laaya. waxyaabaha la fahmi laayahay ay soomaalida weliba kuwii hore jiilashii markaa dagaalka hurinaya ay wadeen, oo ceel dheere la yiraahdo soomaali iyo qadiyadeedii ku riday. taasaa ka mid a. iyadoo la dagaalamayo baa dowlad la dhisaya. dowladdii waxbaa ka soo baxaya, dagaalkii baa sii huraya. waa joogsan waaye, haye ha la yimaado jabuuti. haddana dagaal waxaa la dhisayaa dowlad, dad baa la magacaabaya, waa sii huraya. etoobiya ha la yimaado. waxaa la yiri 93 shir Addis Ababa ka dhaco la isugu tegay baa waxaa la yiri isu imaada oo qaybsada. qabaa'il baa tihiina wax qaybsada. bal dad islaynaya oo qori isku haysta oo xabad wiilashii iska laynaya baa waxaa leeyahay wax qaybsada. hadda macnaheedu waa iska fahmaynaa in maaragtay iyagana mayan fahmin, qaybsigii bay ku wada yaaceen. adigu nabarka halkaasu ka bukaa. ilaa haddana waa sidii. hala heshiiyaa laleeyahay, dowlad hala dhisaa laleeyahay, welina wax heshiisa ma jiraan. dastuurkii lagu heshiin lahaa waa qabyo. weli lama fariisan oo lama dhihin waree dhahaya bal saanu u heshin. yacni maanta oo 2021 la marayo baa weli heshiis aan lahayn oo laleeyahay isu imaado heshiiya. sababtu waxa weeye wixii lagu heshiin lahaa oo dhan baa meesha ka maqan. caawa aniga haddaan ka qayb gala heshiiskaas, damac baa i qaadaya. waxaan leeyahay maya,
gashiya goomale aniga halkaas agii ciyaalka lahaabaa kubadda markii lagaa saaro adiga u kaadi la dhaho 5 baa la yahay dhalaan la jabsan jiray dhaqankii ciyaalka ahaa dhexdaa lagu daadinaya saan loo cayaarin dhalooyinkaa laygama taaban karo ilaa lay raalli geliyo maaragtay waa in 5 cayaartii lagu ciyaaraa marka siyaasaddii soomaaliya halkaasa gashay nin siyaasi ana marar badan baan ku soo celceliyay siyaasi xal mushkilad jirta xalkeed ma keeno especially markuu qaranku burbursan yahay oo la doonayo in qaran dhis dib qarankii loo dhiso siyaasi lagama talageliyo waayo siyaasigu maslaxad buu leeyahay soomaali oo dhan maanta 2 qayb wey qayb mu-ayida iyo qayb mucaarada qaybtan mu-ayidka ah iyo qaybtan mucaaradka ah isku duuduub haddaad fiirisid inta badan waa dad dameeridhaan raacday wax yar baa u bidhaamay waxa yar bay isaga taagan yihiin ama uu mu-ayid ku noqday ama mucaarad ku noqday eed male waa caamadii in yar oo waxaa jirta dana fiirsanaysa intaasna waxaa lagu qaban karaa oo lagu xakamayn karaa dastuur buuxa oo la dhaho war waddadaas baanu ku heshinay waddadaa naqatay haddaad tallaabo ka leexatid waad baxaysaa isla markaasna ay jiraan hay-adihii gacanta qaban lahaa oo toosin lahaa dadku waa kala nafisi lahaa laakiin waxaa baahida soomaali baday gaajadana baday kulli siyaasiyiin naga dhigay kii yara iyo kii weynaa derbi fadhi ku dir iyo derbiya istaag naga dhigay waxa weeye qadiyadii oo aanan la fahamsanayn cudurkii oo aanan la fahamsanayn aqoon-yahankii oo aanan warkiisa la maqlayn waayo waa la xanuunsan yahay marka warkaygii waxaan kusoo gabagabaynayaa qadiyadda soomaaliya waxay u baahan tahay jiil cusub oo qaada qadiyadan dadka ila daadaa iyo kuwa igu dhodhow kuwa iga waaweynaa waaba dhammaadeen culays bay ku yihiin jiilka cusub ee yaryar ee soomaalida culays bay ku yihiin sababtoo ah jiilkaasi waa uu bislaaday dagaal buu ku dhashay ku koray wiilka 30 jirka maanta ee jaacadda ka baxay ee xaaska ah nolol buu rabaa waxa hortaagan waa caqliyadii aanu ka dhaxalay kuwii naga horreeyey ee rag iska celi ahaa u banneeya dhalinyarada jiilka cusub ee waddada saxana u tilmaama aqoon-yahankuna dowrkiisa suu u qaato dowr xalaala oosan waxba 456 dowladdii daakhile markii la qaatay 1956 yaa waxaa jiray sugaan qurux badan oo uu lahaa ismaan yuusuf kennediid allah u naxariiste xilligaas aan weli dowladnimada la qaadan buu wuxuu tilmaamayay nabarada la socda cilladaha la socda dowladdan dhalan doonta abwaanku waa macallin waa aqoon-yahan waa hage bulshada haga waxaa ka mid ahaa sugaantaas istiqlaalkii lagu taami jiray tiirka soo durugya haddaan tabar u leenahay xornimo timi waraaqdii iyo waataa talyaanigii sallimay tacabadii qaare taxkuumadii ma fududee haddaan taagu heli weynay tiiraanyo iyo ciil hadday taawi nagu reebtay gabaygii ma wada hayo waxaa ku jiray tadbiir xumo darteed xaal hadduu toosi kari waayey toltolnimo iyo qabiil haddii la ina taabsiiyey taws aan baxayn iyo bugtay nagu tallaaleenee tafaraaruqa kuwa inagu riday toodii subsade iyagii way hagaajiyeen laakiin annaguse cudur tafaraaruq la dhahaa layna dhex dhigay towsku waa cudurka kronikada wey cuduradu waa labo kan kronikada waa kan muddada uu qofku la jifo bukaanka tows aan baxayn toltolnimo iyo qabiil haddii la ina taabsiiyey tows aan baxayn iyo bugtay nagu tallaaleen intaasaan uga baxayaa waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmat